cashirkeena lixaad ee aan ku baranaynay biotechnology-ga waxaan soo gaarnay cashirkeena labaad waxaan ku baran doonaa insha Allah techniques-ka genetic engineering-ka uu adeegsanayo ayaan qaybta labaad ka qaadanaynaa hababka genetic engineering-ka uu adeegsado si loo sameeyo marka recombined DNA oo kale si loo sameeyo hababka genetic engineering-ka uu adeegsado ayaan baranaynaa insha Allah arday cashirka marka aan dhameeno waxaad awood u yeelan doontaan insha Allah in aad sharaxaad ka bixisaan habka loo yaqaan gel electrophoresis-ka iyo qaybo kaleeto oo la mid ah asaga in aad sharaxaad ka bixisaan ayaad awood u yeelan doontaan insha Allah hore waxaa usoo qaadanay marka restriction enzyme haddana waxaan galaynaa insha Allah qaybta labaad gel electrophoresis waxaan galaynaa gel electrophoresis ayaan galaynaa waxaa lahayd to create piece of recombined DNA si loo sameeyo qayb ka mid ah recombined DNA waxaa loo baahan yahay 2 or more fragments waxaa loo baahan yahay laba qayb ama wax ka badan oo DNA gobolo DNA ah ayaa loo baahan yahay must be joined together waa in la isku biiriyaa lahayd marka kuwaas ayaa loo baahan yahay si la isugu biiriyo before this can happen inta marka aanan dhicin in la isku biiriyo fragmentskaas waa in la helaa horta fragmentska oo laga soo socdaa fragmentski la rabay noolii uu ku dhex jiro ama unugii uu ku dhex jiray fragments of DNA must be purified or isolated waa in lasoo doortaa live oo asagoo nadiif ah la keenaa oo maxaa la lahaa lasoo gooyaa laga soo gooyaa DNA-da qaybihiisa kala duwan marka habka ugu fiican loo kala bixiyo DNA-yada fragmentskooda habka loo kala saaro waxaa loo yaqaanaa marka habkaas oo kala soocayo DNA-yada gobolada uu ka kooban yahay marka la kala jibinayo waxaa lagu kala jibiyaa horta restrictive enzyme ayaa lagu kala jibiyaa marka la kala soocayo marka goboladaas waxaa la adeegsanayaa qalab loo yaqaan ama hab loo yaqaan gel electrophoresis maxaa la adeegsanayaa gel electrophoresis-ka marka waxaa la adeegsanayaa qalabkan marka maxaa waaye qalabkan waxaa ku xiran marka saa u jeedo danab ayaa ku xiran positive iyo negative ka kooban marka goboladii la rabay marka waxaa la sameynayaa in la dhex dhigo DNA-yada fragmentskooda waa kuwa in la dhex dhigo marka qaybahaas qalabkii loo yaqaan electrophoresis-ki kadib ayaa waxaa lagu shubayaa marka dareere loo yaqaan gel dareere oo dhegdheg ah waaye gel ayaa loo yaqaanaa marka dareerahaas buffer waaye buffer maxaa u leenahay waxa waaye wuxuu awood u leeyahay acid iyo base-ka labadaba inuu iska caabiyo oo sidiisa ahaado marka inuu iska caabiyo ayuu awoodaa marka muxuu sameynaa markii korontadii lagu daaro DNA-da waxay ka samaysnayd nucleotide marka ribose sugar iyo phosphate group waxay wadatay marka maynis marka waxaa dhacayso waxyaabahan mayniska wata markii korontada danabkii lagu daaro in ay u cararaan dhanka positive-ka marka waxay ku xiran tahay iyaga weynigooda ayay ku xiran tahay kuwa hortagayo dhinaca positive-ka dhankan oo positive-ka oo ka jira iyagana halkaas ay yaalaan marka kuwa inta soo horgaarayo waxay ku xiran tahay heerka uu gaarsiisan yahay weynigooda marka kuwa yaryar ayaa dhaqso meeshan kusoo hormaraya dhanka positive halka kuwa yaryarna kuwa ku xigana kuwaas ay ku sii xigaan kuwa ugu waaweyn ee ugu culusna ay gadaal jirayaan marka booskoodii in ay kasoo dhaqaaqaan ayaa ku adkaanaysa marka gel electrophoresis-ka halaas waaye waa in danabkii la adeegsadaa fragmentskiina restriction ama reaction 1 qaybtii lagu sameynayay qaybahaas lagu kala shubaa kadibna korontadii lagu furaa marka si ay u kala baxaan goboladii marka waayo aan aragnay iyadoo faahfaahsan waxaa la
This technique takes advantage of the negative charge on the DNA. And habkan wuxuu ka faa'iideysanayaa like negative charge uu leeyahay DNA-da waa qaybta phosphate groupka waay. Using marka waxaa la adeegsanayaa electrical field koronto ayaa la adeegsanayaa to provide the force of necessary separate DNA molecule based on size. Si loo kala bixiyo marka moleculeada DNA-da si loo kala bixiyo gobollo loo kala bixiyo loo kala sooco marka iyadoo loo fiirinayo based on size iyadoo loo fiirinayo size kooda kuwa size-ka yar yar ayaa dhanka positive ka aadaya kuwa size-ki waaweynna gadaal ayay dhacayaan markii la adeegsanayo electrophoresis-kan waxaa la sameynaa the gel which is made up either agarose or polyacryl amide waxaa la adeegsanayaa marka dareere ayaa waxaa lagu shubayaa qalabkii electrophoresis-ka kadib dareerahaas marka maxaa loo yaqaanaa agarose ayuu noqon karaa ama polyacryl amide ayuu noqon karaa labadaas dareere ama labadaas shay labadaas maado ee dhegdhega ayaa lagu kala shubayaa midkooda ayaa la adeegsanayaa marka si ay u kala reebaan walxihii DNA-da ka samaysneed si loo kala reebo ayaa maadadaas la adeegsanaya kadib waxayna siinaysaa oo kasoo baxaya hadhow 3-dimensional matrix shay iswata oo 3-dimensionalka marka waa ku aragteen physics-ka waa waxa dhowr dhinac leh waa marka dhowr dhinac leh sida saddex dhinac marka aad fiiriso saddex dhinac ka mid ah ayaa arkaysaa saddex dhinac ka mid ah marka waxa waaye jurmi ayay leedahay gacantaada haddaa sawirto iyo marka aad caadi u taabanayso oo arkayso isku mid ma ah sawirka hal dhinac le ka arkaysaa laakiin marka aad fiirinayso waxaa dhowr dhinac ka arkaysaa marka waxay ka soo saaraysaa DNA-dii markii fragmentski markii meesha lagu subo gobolo oo 3-dimensional ah oo kala baxsan molecule kala baxsan ay soo saaraysaa kuwaasoo sizeskooda uu kala weyn yahay marka sizeska sidaas ayuu u kala weyn yahay oo midka uu ka hore uu ka yar yahay dhanka positive uu ka jiro halka dhanka negative uu soo jirana ay ka waaweyn yihiin marka figure-kan oo waa kana midkan ayaa noo cadeynayo hore aan u sharaxnay marka gelka muxuu sameeyaa the gel is submerged in a Barbour solution gelki waxa lagu shubayaa marka dareere oo loo yaqaan Barbour solution kaasoo ka kooban marka containing that ions ayuu ka kooban yahay that can carry current and is subjected to an electrical field marka dareerahaas baabarka wuxuu ka kooban yahay walxa ion ah kaasoo qulqul korontada uu xiriirin karaa ayaa lahay electricalka ayuu xiriirin karaa korontada si fudud ayuu ku xiriirin karaa marka the strong negative charges from the phosphate group negative charges ku jiro phosphate groupka ee xoogan ayaa DNA-da ay leedahay ayaa waxay sameynayaan marka backbone waxa waaye DNA-da qaybta nitrogen basis-ka maana qaybta kale ee sokorta iyo waxa ka kooban phosphate groupka ayaa waxaa loo yaqaana backbone marka qaybtaas meniska ku jirto ama meniska haysata phosphate groupka waxay sameynaysaa in ay haajirto ay ka dhaqaaqdo qaybihii kaleeto ayna aado dhanka intay aadaysaa dhanka positive side-ka ayay aadaysaa positive ball ayay aadaysaa and then the gel acts as a to separate DNA marka waxyaabihii dhegdhega ee gelka ahaa maxay sameynayaan waxay u dhaqmayaan sida shaqshaqa oo kale ama miiraha oo kaleeto si ay u kala reebaan ama u kala miiraan DNA-da moleculeada uu ka samaysan yahay ayay kala reebayaan marka medium oo waxay ku dhex socdaan oo gel ah oo dhegdheg ah mediumkaas marka wuxuu sameynayaa in walxii uu kala reebo according to marka sidee loo kala reebaya size-kooda ayaa la fiirinaya and the larger molecule and slower it will move walxaha waaweyn ayaa si tartiib ay u dhaqaaqayaan halka kuwa yaryarna ay dhaqso u dhaqaaqayaan ayna aadayaan dhanka positive side-ka ay u badanayaan marka DNA in gel can be visualized using
fluorescent dye that binds to the DNA. DNA marka waxaa lagu shubayaa maadada loo yaqaan fluorescentiga midab ayay yeelaysaa si loo arko walxii DNA kala fuqfuqay ee kala babaxay ee kala jabay. Fragmentska DNA kadib waxaa la sameynayaa kala jajabay waxaa la sameynayaa purified ayaa lagu sameynayaa waxaana loo diyaarinayaa in la isticmaali karo oo siyaabo kale loo isticmaali karo ayaa loo diyaarinayaa. marka electrophoresis waxa waaye in koronto la isticmaalo qalabkaasna la isticmaalo electrophoresis-ka lagu subo jeelki si uu kala reebo walxihi kadibna ioniski baabarka lagu subo si korontada ay u xiriiriyaan kadibna waxa la sameeyaa korontadii markii la daaro DNA-di qaybtii negative-ka weeyay isla markii dhanka positive-ka ayay aadaysaa sidaas ayay ku kala fuqfuqayaan oo ay ku kala jajabayaan. marka jajabkaas ayaa waxa loo adeegsan doonaa hadana in laga sameeyo recombined DNA in laga sameeyo recombined DNA ayaa loo adeegsan doonaa. waa kana marka waxaan gudbeynaa qodobkeena saddexaad hababka uu genetic engineering-ka loo isticmaalo habka saddexaad waxaa loo yaqaanaa recombined DNA in laga sameeyo DNA in la sameeyo recombined waa arkeena qeexitaanka gudaha ku arkeena marka la rabo DNA in la kala jibiyo waxaa loo soo adeegsaday marka DNA-da marka la rabay in la kala jibiyo oo la kala bixiyo gel electrophoresis ayaa la adeegsanayaa. fragmentskaas marka la sameeyay oo leh maxay leeyihiin size-yada kala duwan cabirada kala duwan leh waxaa la sameynayaa gel electrophoresis-kii marka uu kala bixiyo ayaa meeshii laga soo bixinayaa purified ayaa lagu sameynayaa kadibna maxaa la sameynayaa combined with DNA fragments from another source kadibna DNA kala iyagana sidaas oo kale loo soo jibiyay ayaa loo geenayaa kadibna waa la isku xirayaa marka waxa ka dhalanaya DNA recombined DNA ayaa ka dhalanaya. recombined DNA marka waxa waaye in la sameeyo new generated DNA cusub oo gacan ku sameysa in la sameeyo oo ah laga kala keenay DNA kala duwan laga keenay from different sources waa DNA laga kala keenay different sources kala duwan DNA laga keenay in la isku xiro marka taasoo kale waxaa loo yaqaanaa recombined DNA qaybo meel laga keenay macna recombined DNA marka la joogo technology has been revolutionized the way scientists study DNA. waxaa la marka recombined DNA waxa aad u saaciday in aad loo kaso saynisyahanada ay diraaseeyaan tiknoolajiyada ayaa aad u saaciday maxaa yeelay waxay u suurgelinaysaa tiknoolajiyada in la adeegsado geneska la diraaseeyo noolaha geneska uu leeyahay dhan qof walba in la diraaseeyo ayay fududeynaysaa. hadda markaan fiirino activity-gan ardayda waxaa la rabaa in aad fiirisaan wuxuuna muujinayaa stageska lagu soo saaranayo marka useful medical product waa waxyaabo caafimaad ahaan loo adeegsan doono kuwaasoo muhiim u ah qofka xanuunsan marka insulin hormoonka loo yaqaan ayaa la soo saari rabaa marka waxaan la adeegsanayaa recombined DNA ayaa la adeegsanayaa tiknoolajiyadaas ayaa la adeegsanayaa kadibna waxaa laga rabaa in aad ka jawaabto su'aalahan ardayda. meeshan waxaa noo yaalo bacteria ayaa noo taalo halkaana waxaa noo yaalo unuga ibni aadanka gaar ahaan qaybihii pancreaska ku jiray waay unugyada marka waxaa la rabaa unuga ibni aadanka qayb ka mid ah qaybtii u sameynaysa jirka insulinka jiinka u sameynaya in laga soo gooyo ibni aadanka unugiisa in laga soo gooyaa la rabaa halka bacteriyada unugeedana qayb ka mid ah laga soo bixinayo unuga bacteriyada DNA-deeda qayb loo yaqaan plasmid oo gooni u taalo unuga gudihiisa gooni uga taalo waa chromosome dheeri ah bacteriyada ay leedahay oo gooni u baxsan waay chromosomekaas ayaa la soo bixinayaa markii la soo bixiyo marka gobol ayaa qayb ka mid ah ayaa waxaa lagu beerayaa DNA-dii ama gobolkii jiinkii laga soo gooyey ibni aadanka qaybtii laga soo gooyey jiinkii laga soo gooyey unuga ibni aadanka ayaa waxaa lagu beerayaa marka
bakteeriyadii plasmidkeedii kadib bakteeriyadii ayaa lagu celinayaa qaybta marka jiinkii insulinka mas'uulka ahaa waaye qaybtan waxaa loo yaqaanaa plasmidkii jiinkii marka la isku qabto marka waxaa ka dhalanayo unugii DNA dhammaystiran kadibna in lagu celiyo unugii bakteeriyada ahaa in lagu dhex celiyo kadib waxaa dhalanayso in ay soo saarto marka bakteeriyadii insulin badan insulinkaas purification ayaa lagu sameynayaa ugu dambeynna qofkii ayaa lagu durayaa marka ardayay waxaa laydinka rabaa idinkoo fiirinayo activity-ga in aad ka shaqeysaan su'aalahan activity-ga la socda waxaan u gudbaynaa marka aan sii fiirino recombined DNA-ga borotiinka ugu horeeyay ee la soo dahroogo ee laga sameeyey lagana sameeyey recombined DNA waxaa loo yaqaanay muxuu ahaa insulin waaye borotiinkaas waa insulinka marka waxaa la xaqiijiyey oo toos loo ogolaaday in uu si rasmi si sax ah loo sameeyey 1982 waxaana la sii jiray oo loo adeegsan jiray dadka qaba cudurka loo yaqaan macaanka ama sokorta ayaa la siin jiray si marka sokorta isku dheelitirkeedii maxaa la uga qayb qaato ardayda waxaa ogtihiin jabtarkii endocrine systemka waxaa kusoo baranay insulinka qaabka ugu shaqeeyo marka insulinka shaqadiisa halkaas ayaa cadeynaysa marka qaybtan dadka qaba diabetiska type 1ka waxay u baahan yihiin insulinka ayaa jirkoodii ku yar insulinkii marka in lagu daro waagii hore marka insulinka waxay ka keensan jireen hormoonkan insulinka waxaa laga soo saari jiray saca ama sidoo kale loodii iyo maxaa la lahaa doofaarka ayaa laga soo saari jiray hormoonkan loo yaqaano insulinka marka qaaliyo ahaa ma tiro yar ayaa laga soo saari jiray iyo lacagta uu ku fadhiyana qaali ayay ahayd marka lama awoodi karin qaabkan ayaa la helay qaabkan ayaana la approve gareeyay oo hadda la adeegsadaa growth hormonka marka asagana growth hormonka loo yaqaan koriinka ee caruurta loo adeegsado duwaarfiga ah caruurta duwaarfiga ah ee aanan korin cilinka ah ayaa marka waxaa loo adeegsadaa growth hormonkan in iyadana lagu duro pituitary glandiga marka uu dhibaato ku imaato ee growth hormonka la soo deyn waayo asagana wuxuu noqday marka recombined DNA-ga hababka lagu soo saarto ayuu noqday oo hadda sidii insulinka oo kale ayaa loo soo saartaa sidoo kale waxaa jiro blood clotting factors waxyaabo ka qayb qaato ama borotiino ka qayb qaato dhiigga in la xinjireysiiyo dhiigga xinjireysiintiisa marka waxaa qaabilsan borotiino haddii dhiiggii uu xinjiroobi waayo waxaa la kala dhaxlayaa waxaa dhacaya cudur loo yaqaan hemophilia cudurka marka hemophilia waa cudur waalidka laga dhaxlo dhalaankii uu ka dhaxlayo marka ardayay qaababkaas kala duwan insulinkii iyo growth hormonka iyo maxaa la lahaa blood clotting factorska waxaa lagu soo saartaa qaabab loo yaqaano recombined DNA haddaba su-aashan waxaan rajeynayaa inaad ka shaqeyn doontaan waxaa lagaa rabaa inaad sheegto xiriirka ka dhexeeyo ama in aad waafajiso xiriir ka dhexeeyo restriction enzymeska iyo recombined DNA-da maxay tahay xiriir ka dhexeeya waxaan u gudbaynaa ardayay gene colony waxa waaye in la koobiyeeyo marka jiinkii asagoo sidii ah DNA-gii aanan wax laga bedelin in la koobiyeeya waxay tahay gene colony marka waxaa lahay marka la rabo in la sameeyo gene badan oo la rabo in la sameeyo tusaale ahaan hadda insulinkii la sameynayo kale geneskaas oo kale insulinka oo kale in la badiyaa la rabaa kadibna plasmidka bakteeriyada lagu talaalo marka la rabo marka saas oo kale in la sameeyo jiinka la rabo in la badiyaa lahayd waxaa la adeegsanayaa habkan loo yaqaan cloning factors waxyaabo cloning ah cloninka sheegii la rabay in la koobiyeeyo waa cloning factorskana xambaarayo waa marka waxyaabo xambaarayo cloning factors ayaa la isticmaalaya marka waxyaabihii jiinkii la rabay in la koobiyeeyo waxyaabo xambaaraya ayaa la isticmaalaya processka marka gene colonyka geneska la koobiyeynayo
ayaa waxaa loo yaqaanaa gene cloning. marka lagu daro gene-kii la koobiyeynayo lagu dhex daro gene kale ama DNA kale la dhex dhigo, markaasaa waxaa loo yaqaanaa gene cloning. sidaasna lagu badiyo sheegii gene-kii la rabay in la badiyo. a clone waxa waaye exact copy of the DNA segment. waa gene ama DNA qayb ka mid ah oo si rasmi ah loo koobiyey. exact copy waa asagii ahaa la koobiyeyna. marka gene-kii oo sidiisa ah ayaa la koobiyeyna. sidoo kale clone waxaa noqon kara unuga marka la koobiyeeyo kale wuxuu noqon karaa clone. waa la koobiyey copy waa unug dhan in la sameeyo oo la koobiyey. sidoo kale geneska noole dhan uu leeyahay waxaa la awoodi karaa in lagu sameeyo clone in la koobiyeeyo. researcherska marka dadka cilmi baarayaasha ah waxay awoodaan inay sameeyaan clone DNA fragments by inserting them into the cloning factor. DNA la rabo ama gobolada la rabo geneska la rabo in la koobiyeeyo ay waxay dhex gelinayaan cloning factor. cloning factor marka waxa waaye saa hore usoo sheegnay waa waxyaabo DNA-yo xambaarayo geneska ama goboladii la soo gooyay ayay xambaarayaan si loo badiyo sheygaas. noole kaleetaan la dhex dhigi rabaa. marka dhexdhigidaas waxa waaye guud ahaan koobiyeynta guud waxaa la lahaa gene cloning. marka qaybta la dhex dhigayo marka DNA-da ama chromosomka la dhex dhigayo gene-kana waxaa loo yaqaanaa cloning factor. marka when the factor carrying the foreign DNA enters bacteria marka uu qaadayo marka cloning factor waxa waaye waa DNA xambaarsan foreign DNA kale oo foreign ah gobol ka mid ay xambaarsan tahay. marka ay xambaarsan tahay marka waxaa la dhex gelinayaa bacteria ayaa la dhex gelinayaa. bacteria marka waxay bilaabaysaa iyada maadaama DNA-dii waa lagu dhex milan yahay marka warhayso marka waxay bilaabaysaa in la badiyo. grow ay bilaabaysaa marka inay korto grow a colony of colonate cells in ay sameyso unugyo badan oo koobi ah oo midkii foreign-ka ah laga koobiyey ayaa bilaabanaysa. marka foreign-ki la sameeyey marka colonygii unugyadii la koobiyey waxaa ku dhex jiro foreign DNA dheeri ah oo foreign ah ayaa ku dhex jiro oo ku dhex koray. marka waxyaabahan cloning factorska noqon karo waxaa ka mid ah waxyaabaha wax lagu dhex beeri karo waxaa ka mid ah viruska ayaa ka mid ah. viruskaasoo marka wuxuu sameynayaa wuxuu weerari karaa plasmidka bacteriyada ee leedahay ayuu weerari karaa. sidoo kale bacteriyada guud ahaana weerar ayuu sameyn karaa. cloninka aan fiirino figurkan fiiriyaa lagu dhahay su-aalaha soo socdana ka jawaab. kuwa marka waxa waaye fragments waa marka fragments oo laga soo qaaday source of DNA qayb ka mid ah DNA-da. fragmentskaas waxaa la rabaa marka in loo dhiibo plasmidkii la dhex geliyo. plasmidkii marka wuxuu noqonayaa cloning factor ayuu noqonayaa. plasmidkana waxa waaye qayb ka mid ah bacteriyada. waa kana hadda plasmidka qayb ka mid ah bacteriyada waa chromosome ka mid ah bacteriyada gooni ayuu u baxsan yahay. chromosomka marka ayaa waxaa la awoodi karaa marka in cloning factor loo isticmaalo. marka cloning factorkii waa kan waxaa la dhex gelinayaa transformation ayaa lagu sameynayaa DNA-da ayaa la dhex gelinayaa kadib DNA-dii bacteriyadu way isbadinaysaa. markaasaa waxaa ka dhalanaya marka cloning gene oo koobiyeysa. marka hoosaas ayaa waxaa loo yaqaanaa cloning factor. ardayay intaas waxay ahayd sharaxaadii activity-ga. waxaa idinkaga baahan yahay marka in aad ka soo shaqeysaan su-aalahan hoos ku qoran insha Allah. DNA sequencing waxa waaye DNA-da nucleotide-yada ay ka samaysan tahay qaabka isugu xigxigaan in la garto ayaa waxaa la lahaa DNA sequencing. marka waxaa la lahay DNA-yada qaabka ay u habaysan yihiin nucleotide-yadooda qaabka isugu xigxigaan nooleyaasha waxa waayaa lahay unknown lama yaqaan. marka nooleyaasha intooda badan DNA-dooda qaabka ay u habaysan tahay nucleotide-yadooda qaabka isugu xigxigaan unknown waaye lama yaqaano.
marka la ogaado ama ogaanshaha la ogaanayo DNA-da noolaha uu leeyahay sequencegeeda qaabka ay u habaysan tahay ama DNA-dii la badiyey waxay siinaysaa marka saynisyahanada waxay siinaysaa marka macluumo muhiim ah taasoo lagu sameyn karo marka diraasad dheeri ah iyo baaris dheeri ah macluumo lagu sameyn karo marka waxaa dhici lahayd sequence of a gene in la ogaado marka DNA-dan geneska ay ka kooban tahay dhammaan in la ogaado ayaa dhici lahayd kadibna la saadaaliyo gene walbo shaqada uu qabto gene walbo in la saadaaliyo ayaa dhici lahayd si marka loo barbar dhigo waxaa la ogaa lahaa oo la saadaali lahaa geneska DNA walbo geneska ee wado ayaa la saadaalin lahaa kadibna waxaa loola barbar dhigi lahaa noolayaal DNA-doodii ama sequencegoodii la yaqaano kadibna shaqadii ayaa sidaas lagu xadidi lahaa marka la xadido marka DNA-dii shaqadeeda waxaa dhici lahayd in la saxo mutationka dhalandooriska ku imaado ama khalad ku imaado DNA sequencegiisa in la saxo ayaa dhici lahayd marka kadibna cuduro badan sidaas lagu daaweeyo ama howlo badan sidaas lagu qabto qalabkan waxaa loo adeegsadaa marka sequencer machine waaye DNA-dii in maxaa la lahaa lagu raadiyo qeybihii ay ka kooban tahay labadaas qalab ardayday waxaan soo gaarnay layliga casirkeena wuxuu ka kooban yahay marka 3 su'aal su'aasha koowaad waxay leedahay how does gel electrophoresis used to separate DNA fragments sidee waxaa laga rabaa inaad sharaxaad ka bixiso gel electrophoresis-ka qaabka uu adeegsado DNA fragmentska si loogu kala bixiyo qaabkee loo adeegsadaa sharaxaad ka bixi sidoo kale waxaa laga rabaa qaabka loo diyaariyo recombined DNA qaabka loo diyaariyo in aad sharaxaad ka bixiso ayaa laga rabaa su'aasha saddexaad waxaa laga rabaa gene colony horta maxaa laga wadaa gene colony maxaa laga wadaa ardayda casirkeeni maanta aan uga hadlaynay qaar ka mid ah techniques-ka maxaa la lahaa genetic engineering-ka ku saabsanaa halkaas ayaan kusoo